soo dhawaada saaxiibayaal wiilkeenii sirta filmis sheekadeennu maanta waxay ku bilaabanaysaa gabadh lagu magacaabo Dambi oo muuqata mid xanaaqsan ama murugaysan waxayna niyadda iska tiriinay meeshan si uu uga baaba'do isla markaas waxay indhaha ku dhufatay godir oo biyo roobaad ku jiraan markii ay Dambi u soo dhawaatay waxay biyaha dhexdooda ka aragtay dad xiran dhar la yaab leh dhammaantood waxay Ilaahay weydiisanayaan roob dadkaasi waxay lahaayeen roobnoomadii 3 sano ee la soo dhaafay dadkuna waxay u dhimanayaan abaar si lama filaana Dambi ayaa biyaha ku dhex booday waxayna si toos ah u tagtay goobta ay dadkaasi joogeen roobkana weydiisanayeen Dambi aad bay ula yaabtay markii ay aragtay iyaga waxayna weydiisay muxaaduubis intaxana filim boqor iyo boqorad soo yara cabsaday wuxuuna si xanaaq leh u weydiiyay inay tahay saaxirad Dambi ayaa si yara cabsi leh u tiri ma ihi saaxirad waxaana hay ardayda dhigata fasalka 12aad sanado badan kadib luqaddu aad bay isku bedeshay sida ay u hadlaysa awgiyo dadkii waxay u maleeyeen inay akhrinayso sixir aad bayna u sii cabsadeen kadib qaar ka mid ah askartii ayaa siifa ku hareeriyay markii Dambi ay ogaatay in sayfahan ay yihiin kuwa dhaba waxay bilowday inay sheekooyin abuurto maadaama ay shaqadan xariif ku tahay waxay tiri waan ogahay sababta aan halkan u imid waa inaan roobka halkan keeno markii ay taas maqleen dadkii oo dhami madaxa ay dhulka dhigeen iyagoo ixtiraamaya waxay ku tiri ku celiya erayadan 50 jeer markii ay 50 jeer ku celiyeen hadalkeedii macna darada ahaa isla markii ay madaxooda kor u qaadeen Dambi way ka baaba'day waxay orod ku tagtay meel ay harraha kala laadaan dhardiimeed halkaas ayayna dharkeedii ku bedelatay waxayna la socotay dadkii oo dhan iyadoo si degan meel u fadhiisatay boqorku wuxuu dadka u sharaxayay inay joojiyaan aaminaada waxyaalaha aan macnaha lahayn haddii aan doonayno inaan hagaajino mustaqbalka boqortooyadeena waa inaan ka shaqeynaa sayniska iyo xisaabta markaas ayuu wadaad sheegay in waxaas oo dhan ay yihiin macna darro marna kuma fahmi karno dabeecadda caawinta sayniska sababta kaliya ee uusan roobku u diin ayaa ah in eebba ka cadhooday boqorka haddii la doonayo inuu roobdo boqorku inuu boqoradda cibaado gaara la sameeya Dambi iyaduna shirkan ayay si raaxa leh u dhex huruday kadib waxay aragtay in teleefankeeda uusan agteeda oolin markaas ayay dibadda u soo baxday si ay u raadiso laakiin askariga gaarka ee boqorka oo la yiraahdo Sita ayaa qabtay oo u geeyay boqorka ilaa uu boqorku ka imaanayay waxay ku fikraysay haddii uu roobdo waxaan ku laaban karaa gurigeyga laakiin haddana waxay xasuusatay in 3 sano ee la soo dhaafay uusan roob ka diin halkan boqorku wuxuu yiri gabadhani waxay isku dayday inay nawaasho xaqna uma laha inay noolaato markay taas maqashay Dambi waxay bilowday inay nafteeda ka barido boqorka waxayna tiri boqor waxaan ahay kaliya ardayad si khalad ayaa mustaqbalka uga imid halkan mana garanayo qaabka aan ku imid markii ay geerideeda indhaha saartay nolosheedii hore ayaa hortimi iyadoo dib u xasuusatay sidii ay halkan ku timid Dambi waxay ahayd gabadh caadi ah oo dhigata fasalka 12aad waxa ka hadhay maalmo kooban xilligii ay gelayd imtixaanka gelitaanka jaamacadda laakiin Dambi aad ayay u liidataa xisaabta markastoo ay isku dayday inay xisaab akhriso isla markiiba way hurdootaa maalin ayuu macallinka xisaabtu fasalka dhexdiisa ku tijaabiyay oo ku yiri xalli su'aashan laakiin sidii caadada u ahayd markan xitaa ma aysan xallin karin su'aasha macallinkii ayaa si xanaaq leh ugu horceebay dadkii oo dhan markii ay guriga timid Dambi iyadoo la moodo ardayad wanaagsan ay TV-ga heeso ka shidatay kadibna game ayay ka bilowday teleefankeeda markaas ay hooyadeed meesha timid sidii hooyooyinka kalena waxay bilowday canaan iyadoo kule sida aad heesaha u xasuusato miyadan waxbarashadaada u xasuusan karin waxaad u egtahay aabaha oo kale qof aan waxtar lahayn intaas kadib hooyadii Dambi way fadhiisatay si ay u daawato musasal Dambi haba yaraatee ma jeclayn in hooyada ay musasal la daawato sidaa darteed ay qolka uga baxday si ay u soo aragto saaxiibteed laakiin Dambi saaxiibteed iyaduna wacdi ayay u bilowday iyadoo leh tani waa fursadaadii ugu dambeysay ee aad kuliyad ku gasho haddii aad markan dhacdana gebi ahaanba mustaqbalkaagu burburaya subaxdii xigtay Dambi way soo kacday iyadoo dahsan waxayna bilowday in imtixaanka uu orado maanta wuxuu ahaa imtixaankii ugu weynaa markaas ay hooyadeed dhiirigelisay iyadoo leh muuji dadaalkaaga ugu fiican waxaad hubaal heli doontaa ogolaanshaha jaamacad wanaagsan Dambi aad ayay u walwalsanayd walwalka ugu weynna wuxuu ahaa xisaabta xitaa baska dhexdiisa ayay wax ku akhrinaysaa ilaa ay ka gaadhay xarunta imtixaanka isla markii basku istaagay roob ayaa bannaanka ka bilowday iyaduna degdeg awgiis ayay u hilmaamtay inay daladeeda soo qaadato waxayna ku orday xarunta imtixaanka iyadoo qoyaysa isla markii ay gaadhay bannaanka xarunta imtixaanka garaaca wadnaheeda ayaa sii xoogaystay gebi ahaanbana diyaar umaysan ahayn imtixaankan sidaa darteed hadda waxay bilowday inay dareento cabsi iyo argagax cabsida ay ka qabtay inay dhacdo awgeed ayay meesha ka carartay roobka dhexdiisa ayayna iska fadhiisatay kadib waxay aragtay godkii ay ku dhex booday ee halkan ku timid si ay ugu cadayso boqorka inay ka timid mustaqbalka waxay bilowday inay ka sheekayso waxyaabo ku saabsan taariikhda laakiin nasiib darro waxba ma soo kordhin kadib waxay yara isticmaashay maskaxdeeda waxayna istiri been sheeg oo tiri waxaan aad ugu fiicanahay xisaabta markaas ayuu boqorku seeftii hoos u dhigay oo ku yiri iscadee boqorku wuxuu siiyay Dambi su'aal ay xaliso farta Dambi aad bay u xumayd laakiin garaafka markuu arkay boqorku wuxuu ogaaday in tani ay tahay jawaabta saxda markii uu taas arkay boqorku afka ayuu kala taagay yaab dartiis wuxuuna yiri xitaa dadka ugu caqliga badan dalkeena waxay ku qaadataa 3 maalmood inay xaliyaan dhibaatadan adiguna waxaad ku xalisay 1 daqiiqo gudaheed intaas kadib qof walba wuxuu Dambi u eegayay sidii inay tahay qof aad u caqli badan inkastoo waqtiga ay ka
timid ay ahayd mid aad u caajis badan oo aan waxba qaban karin. haddana halkan qof walba wuxuu ku dhibtoonayay xisaabta fasalka labaad. hadda boqorku wuxuu daambi siiyey deganaansho, wuxuuna yidhi haddii aad dadkeena xisaabta barto beddelkeeda waxaan ku ballan qaadayaa inaan gurigaaga kuu diro. daambi wax kale oo ay samaysan haysan, sidaa darteed way ogolaatay. ardaygeeda ugu horreeyana waa boqorka laftiisa. sidoo kale boqorku wuxuu yidhi hadda wixii ka dambeeya waa inaad halkan joogto adigoo wiil u eg, sababtoo ah waqti kasta oo aad ka timidba haweenku ma noqdaan macallin waqtigeed. daambi way la yaabtay markii ay ogaatay in boqorku xitaa uusan aqoon sida wax loo tiriyo. daambi waxay u bilowday boqorka inay barto aasaaska, marka hore lambarada kadibna isku geynta, kala goynta, isku dhufashada iyo wixii la mida. maalmo yar kadib boqorku wuxuu gelayay imtixaan xisaaba. runtii boqorku wuxuu sharad la galay inuu dhashay waddan kale, tartankaasna wuxuu dhacayay dhowaan. boqorku wuxuu yidhi haddii aan guuldaraysto adiga ayaa lagu ciqaabi doonaa. sidaa darteed miskiinta daambi waxay wax u baraysay boqorka si daacada cabsi darteed. intaas waxaa dheer, siita ayaa gadaal fadhiyey isagoo tumaya hees macaan si boqorku u helo diiradda ugu fiican ee waxbarashada. boqorku wuxuu ku qaatay waqti dheer si uu wax u barto, sidaa darteed daambi ayaa xanaaqday, waxayna dhirbaaxo ku dhufatay wejiga boqorka, taasoo keentay in siika uu isla markiiba seef la soo baxo. maxaa yeelay in la taabto boqorka agtiisa waxay ka ahayd dembi aad u weyn, laakiin boqorka ayaa celiyey iyaga. isla mar ahaanta wuxuu arkay boqoradii oo soo socota. markii uu taas arkayna boqorkii wuxuu qariyey warqadihii xisaabta dhammaantood, wuxuuna iska dhigay sidii inuu baranayo muusikada. maalin isagoo wax xunaya boqorku wuxuu dareemay in daambi ay muddo dheer eegaysay, markaas ayuu iyadana ku marti qaaday inay wax la cunto, laakiin daambi ma jeclayn cuntadaas. wuxuu boqorku ku yidhi maxaa khaldan, cuntadu way fiican tahay. daambi waxay la aaday jikada, waxayna haysatay baakad baasta ah. boqorku wuxuu arkay inay xogaa basbaas leedahay, laakiin dhadhanku wuxuu ahaa mid cajiiba. markii ay daambi ku tiri haddii uu basbaasku ku badan yahay biyo badan cab, boqorku uu diiday oo baastadii oo dhan cunay. maalintii xigtay qof walba wuxuu maqlay qaylada boqorka. daambi ayaa markiiba tagtay si ay u eegto waxa dhacay. waxay aragtay in wejiga boqorka wax lagu soo qoray oo lagu dhajiyey si looga jabiyo sixir madow oo lagu sameeyey. daambi ayaa warqadii ka fujisay boqorka iyadoo leh mudane caloosha ayaa ku xanuunaysa, sababtoo ah waxaad cuntay baasto basbaas badan leh, calooshaaduna lama qabsan waxaas, cidna kuguma samaynin sixir madow, waa uun xogaa calool xanuuna. boqorku wuxuu weydiiyey waa maxay calooshu. intaa kadib daambi waxay uga warantay boqorka xubnaha jidhka inuu halkan ku yaalo wadnuhu, halkanna keliyaha iyo wixii la mida. sidoo kale waxay isku dayday inay dhegaysato garaaca wadnaha ee boqorka, laakiin boqorku wuxuu yidhi anigu waxba ma dareemayo. kadib daambi waxay boqorka ku tiri maalinta aad wax jeclaato wadnuhu wuxuu u garaacmi doonaa si xawliya, maalintaas si fudud ayaad u dareemi doontaa. daambi waxay lahayd aqoon aad u badan marka loo eego dadka xilligaas joogay. boqorku aad buu ula dhacay markuu arkay arrintan. intaas kadib boqorku wuxuu yidhi hadda wixii laga bilaabo waxaad wax bari doontaa dhammaan culimadeenna, keliya maahan xisaab balse sidoo kale sayniska iyo beeraha. habeenkaas boqorku wuxuu siiyey liin macaan ay cunto. kadib daambi ayaa u mahad celisay boqorka, isla markiibana way cuntay. markii uu arrintan arkay boqorku aad buu u xanaaqay. wuxuu yidhi waxay ahayd inaad midhan cunto 3 maalmood gudahood, ma og tahay midhahan inay aad u qaali yihiin. daambi ayaa ku jawaabtay inaan loo baahnayn daraamo intaas le'eg, waxay ahayd oo keliya hal xabo liin macaana. waa maxay dhibaatada weyn ee jirta? intaas kadib waxaan ku xasuusinayaa inaad like saarto muuqaalka aad hilmaamtay inaad like saarto, channelkan aad subscribe tiraahdo oo aad nagu soo biirto haddii aad nagu cusub tahay, waayo waan jecelnahay inuu nagu soo biiro daawado sidaadoo kale u wanaagsan. haddii aan u soo noqono muuqaalkeenna, in cabaara kadib labadoodu waxay bilaabeen inay kubad ku dhex ciyaaraan qasriga. maanta boqorku aad buu u orday sanado badan kadib, maadaama ay waqti badan wada qaateen labadooduna aad bay iskugu dhawaad. xitaa boqoradii ayaa hadda bilowday inay ka masirto daambi. boqorku isagoo dejinaya boqoradda ayaa daambi oo daalan waxay gacanteeda ka soo riday kubaddii, iyadoo u dhaqmaysa si la yaab leh oo hurdo la dhacaysa ayay dhulka ku dhacday. isla markii ay hurdada ka kacday waxay bilowday inay raaligelin weydiisato boqorka, laakiin boqorku wuxuu yidhi waxba ma dhicin wax walba iska ilow. intaas kadib labadooduba waxay u baxeen dalxiis. kadib boqorku wuxuu ku yidhi haddii aad ku guuldaraysato hadafkan waxaan ku siin doonaa xil sare oo maxkamadda ah iyo hadiyad ahaan faras aad u qaaliya. daambi waxay tiri waxba ma doonayo, roobka ugu horreeya markuu da'o ayaan gurigayga ku laabanaya. boqorku wuxuu yidhi ilaa iyo inta laga gaadhaya ha i tixgelin inaan ahay boqor, wayna simannahay labadeennu. laakiin habeenkii xigay shil aad u xun ayaa dhacay. daambi ayaa la xidhay iyadoo lagu eedeeyey inay ku jeesjeestay boqorka. dadkaas ayaa bilaabay inay daambi xadhi ku xidhaan oo ay ciqaabaan. qof walba wuxuu u haystay inay daambi tahay wiil, laakiin markaas ayuu boqorku u yimid oo xoreeyey. wuxuu yidhi wiilkani waa halyey, haddii la isku geeyo dhammaantiinna wuu idinka caqli badan yahay. intaas kadib wadaad ayaa yidhi haddii ay sidaas tahay aniga qudhaydu waxaan jeclaan lahaa inaan imtixaamo. dhagayso wiilyow, waxaad haysataa 2 isbuuc, haddii aadan roob keenin 2 toddobaad gudahood nolosha waan kaa qaadi doonaa. laakiin daambi ma quusan maalin iyo habeenba, waxayna xisaabinaysay wax walba. waxay doonaysay inay saadaaliso goorta uu roobku da'ayo iyadoo xisaabinaysa qoyaanka hawada. waxay aragtay in qoyaanku uu sax yahay, roob ayaana dhowaan di'i doona. waxaana xaqiiqo noqotay in dhowr maalmood kadib uu roobku da'o. farxad weyn ayaa ku dhalatay qalbiga daambi. daambi waxay aragtay god la mida kii ay ugu soo gudubtay halkan, way ka bixi kari lahayd hadday doonto, laakiin hadda ma aysan doonin
inay halkan ka baxdo iyadoo aan dhammaystirin shaqada boqorka waxay samaynaysay hanaan lagu cabiro oo lagu kaydiyo biyaha roobka markaas ayaa boqorku xasuustay in Daambi ay roobka ugu horreysay isaga tegayso isagoo ordaya ayuu tagay meel u dhow guriga Daambi halkaas boqorku wuxuu ku arkay Daambi oo meel taagan oo ooyeysa boqorku aad buu ugu farxay markuu arkay shaqadeeda wuxuu saaray gacanta Daambi wadnihiisa kaasoo hadda si xoog u garaacmayay taasoo ay macnaheedu tahay in boqorku uu jeclaaday Daambi dhanka kale wadaadka ayaa u yeeray Sita wuxuuna ku yiri dil aqoonyahankan dab ahaan wuxuu ka yimid mustaqbalka Sita ayaa durba u tagay boqorka iyo Daambi wuxuu u sheegay boqorka in dadka qaar ee qasriga jooga ay rabaan inay dilaan Daambi intaas kadib boqorka ayaa Sita iyo Daambi u diray keenta si ay in muddo uga badbaadaan ragga soo weerarayay dhanka kale qasriga dhexdiisa wadaadka ayaa boqorka u sharaxayay isagoo leh iska ilo wax kasta oo wiilkaasi ku baray waa inaan dhowrno dhaqamadeena ma ahan waxyaabaha aan macnaha lahayn ee wiilkaas laakiin boqorku iska dhaga tiray hadalkiisa wuxuuna aaday inuu raadiyo Daambi keenta dhexdeeda dhowr ciidan ayaa arkay Sita iyo Daambi Sita ayaa si degdeg Daambi u saaray faraska oo inay baxsato u diray isna wuxuu u istaagay inuu wajahay iyaga Daambi way sii oroday waxayna istaagtay meel aysan wadada hore uga fahmi karin markaas ayay xasuusatay hadalkii boqorka wuxuu mar u sheegay in qoraxdu ay ka soo baxdo jihada ay tahay inay aado markaas ayay hore u sii socotay iyadoo eegaysa iftiinka qoraxda boqorka ayaa durba meesha ku sugayay habeenkaas labadooduba gooni ayay fadhiyeen iyagoo daawanaya xidigaha Daambi waxay tiri mustaqbalka ma aragna xidiga badan laakiin boqorka oo mawduuca bedelaya ayaa yiri waxaan bilaabay inaan ku jeclaado waxaan rabaa inaan sameeyo luuqad ay dadka oo dhan si fudud u akhrin karaan una fahmi karaan kadib Daambi ayaa wax xasuusatay waxay jeebka kala soo baxday lacagta mustaqbalka sawirka boqorka ayaa lagu daabici doonaa warqadda lacagta ee Korea markii ay arrintan aragtay ayay fahamtay in boqorku uu nolosha wax weyn ka qaban doono sidoo kale markii ay soo kacday maalintii xigtay dadka qaar ayaa bilaabay inay Daambi u qurxiyaan sida caruusada waxba kamaysan fahmin waxa dhacaya runtii arrintani waxay ku dhacaysay amarka hooyada boqorka waxay wada aragtay boqorka iyo Daambi boqorkuna wuxuu qasriga ku haysan karaa gabdho kale oo ay weheliyaan boqorada kadib waxaa loo sheegay in loo diyaarinayo inay gogasha la wadaagto boqorka oo ay noqon doonto boqorka xaaskiisa koobaad Daambi markii ay taas maqashay cabsi darteed ayay ugu carartay dadkii waalnaa mid ka mid ah adeegayaasha ayaa u sheegay boqorka in Daambi ay carartay intaas kadib boqorka ayaa bilaabay isagoo xanaaqsan inuu raadiyo ugu dambeyntii markii uu helay ayuu gacanta qabtay oo uu jiiday qolkiisa jiifka Daambi waxay isku dayeysay inay istifaacdo iyadoo leh waxaad igu tiri waxaan ahaan doonaa saaxiibo aniguna kaliya waxaan ahay 19 jir awood hay isticmaalin markii uu taas maqlay boqorku wuxuu yiri waxaad tahay qof weyn 3 sano ayaana laga joogaa markii aad qaan gaadhay adigu ma tihid ilmo sidoo kale kuguma samaynayo wax kasaba arrintan waxaa soo abaabushay hooyaday wax gacanana kuma lihi laakiin hadda waa inaan halkan wada joognaa qof kasta oo kale wuxuu isha ku hayaa qolka subaxdii xigtay Daambi waxay la hadlaysay Sita ayaa weydiiyay miyaad wali rabtaa inaad ku noqoto mustaqbalka Daambi wax jawaaba maysan bixin waxay u ekeed mid aad u walwalsan isla habeenkaas waxay aragtay nidaamkeeda cusub ee tirinta maalmaha iyo bilaha kaasoo ay gacan weyn ka geysatay abuuristiisa iyadoo gacan ka helaysa arrintan dadkaasi waxay helayaan xog sax ah oo ku saabsan bilaha iyo maalmaha intaas kadib boqorka ayaa u yimid Daambi oo kaxeeyay si uu u tuso wax uu ka shaqeynayay muddo dheer boqorku waxa uu sameeyay xarfo cusub kuwaasoo aad ugu fududaan doona xitaa in dadka caadiga ay fahmaan ma uusan doonin in dad kooban un ay wax bartaan waxa kale uu uga mahad celiyay arrintan oo dhan haddii aad adiga ahaan lahayn ma sameeyeen waxan oo dhan isla markii labadooduba dhex tageen hoolka boqorku wuxuu Daambi fadhiisiyay kursi wuxuuna timaha u geliyay irbad boqortooyo macnaheedu waxay ahayd in haddii boqorku taas timaha gabadh geliyo ay noqonayso xaaskiisa boqorku waxa uu Daambi weydiiyay in nolosheeda oo dhan halkan la joogi doonto Daambi iyadoo ooyeysa ayay tiri ma sameyn karo arrintan xitaa haddii aan rabo waxaa nafteeda u ballan qaaday inaan guriga aadi doono roobka ugu horreeya ee daa hooyadayba ay sugaysa maxaan sameeyaa keligeed ayay noqonaysaa la'aantay intaas kadib boqorku si galgacal ayuu u yidhi waayahay hal mar dib u laabo laakiin soo laabo adigoo hooyada wax walba u sheegay kadib labadeenu halkan ayaan wada joogi doonaa laakiin Daambi ayaa mar kale diiday arrintan boqorku aad buu u xanaaqay wuxuuna yidhi waan gartay mustaqbalku maanta aad ayuu uga fiican yahay boqortooyadan halkan dadka oo dhan waa wada jaahil cudurro ayaana faafaa waana inaad halkaas ku noqotaa intaas markuu yidhi kadib boqorku isagoo qalbi jabsan ayuu goobta ka dhaqaaqay Daambi ayaa hoolka dhex taagneed iyadoo daawanaysa si lama filaana qof ayaa gadaal Daambi wax kaga dhuftay madaxa kadibna dab qabadsiiyey meeshii oo dhan markii uu boqorku dareemay inay jiraan wax khaldan waxa uu orday inuu badbaadiyo Daambi isagoo naftiisa halis gelinaya subaxdii xigtay wuxuu boqorku ku eedeeyay wadaadkii inuu isagu ahaa kii dabka shidaya kii weeraray Daambi laakiin wadaadku wuxuu bilaabay inuu inkiro balse gacmihiisa wali waxaa ka muuqday raadad qiiqa iyo dambas isagoo oo taas tusaya ayuu boqorku yidhi xataa garan maysi sida waxan loo sameeyo sidoo kale boqorku wuxuu u yeedhay Daambi oo weydiiyey ma maqashay codka ninkan Daambi ayaa madaxa ruxday iyadoo leh haa runtii waxaa boorsada Daambi ku jiray buug waxayna ka badbaadisay mindida hadda boqorku wuxuu aaday wadaadka isagoo xanaaqsan wuxuuna yidhi waad ogeed waxa ay tani iga dhigan tahay ee maxaad u samaysay wadaadka ayaa yidhi haddii ay faafto luuqad cusub dhalinyaradu waxay bilaabayaan inay fikiraan oo ay wax fahmaan maskaxdooda ayay isticmaali doonaan jahwareer ayaana meel walba ka bilaaban doona boqorkaygiiyo way kugu adkaan
doontaa inaad xukunto cabsi kama qaba geerida nafteedu waxa u heelan tahay qasriga boqorku waxa uu ugu jawaabay si kastoo aad isugu daydo inaad joojiso waxaan dadka bari doonaa akhriska iyo qoraalka nolosheennu way gaaban tahay markaa maxaynu uga cabsanaynaa adduun aan mustaqbalka jiri doonin laakiin tani wax saameyna kuma yeelan wadaadka jilbaha ayuuna dhulka dhigtay oo yidhi igu ciqaab wax kasta oo maskaxdaada ku jira hase yeeshee muddo yar kabacdii waxaa curtay roob waqti yar kabacdiina uu da'ayay daambi ayaa qof kasta oo qasriga joogay macsalaamaysay boqorku wuxuu daambi weydiiyey ma kusii dhoweyn karaa daambi way aqbashay boqorkiina faraska ayuu saaray isagoo geeyey hara ay uga noqon karto gurigeeda harada ayay ku dhex booday intay hoos usii qoostay ayay ku soo laabatay dunideedii waxay aragtay in ilbirqsiyo yar uun ay ka soo wareegtay weli way geli kartaa imtixaanka waqti ayaa u hadhay waxay u oraday dhanka hoolka imtixaanka macallinkii uu sugayey imtixaankiina wuxuu ahaa mid hadda bilowday kursigeeda ayay ku fadhiisatay waxayna bilowday imtixaanka maalinkaas markay guriga timid kolkay hooyadeed aragtay ayay laabta gelisay si adag ayay noogu qabsatay daambi hadda gebi ahaanba way isbedeshay si kastaba ha ahaatee bile ayaa ka soo wareegay laakiin maalin maalmaha ka mid a markii ay iskuulka ka soo baxday roob ayaa markii la bilowday kadibna qof ayaa dallad saaray madaxeeda waxay aragtay in qofkii dalladda la kor yimid uu eg yahay boqorkii wiilkii wuxuu yidhi dalladaadu waxay kaaga dhacday baska iska ilaali sidan haddii kale waad qoyi doontaa labadooduna waxay is eegeen iyagoo dhoolla caddaynaya haddii uu ku cajabiyey muuqaalka like saar channelkana subscribe dhe oo nagu soo biir haddii aad nagu cusub tahay halkan waxaan ku soo gudbinaa muuqaalo aad u xiiso badan oo ku cajabinaya waxaana inoo balana muuqaalkan xiga